daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeeni into kariska Lifeline Soomaaliya idin soo diyaar garayso mar walba maanta halkan waxa aanu ku soo diyaar garanay sida loo sameeyo digaaga roast chicken ama tan loo yaqaano kale Kentucky chicken marka waxaad u baahan tahay waa digaagana qiyaasta adigu rabtid ku xiran tahay dad badan aad wax u sameynaysid marka digaag weyn oo 2 kiilo ama kiilo bara aad marka aad soo gadan kartaa ama soo iibsan kartaa adigoo marka digaagi googoynaya siyaabo waaweyn ama siyaabo yar yar adiga cadadka dadka aad u karinaysay ay ku xiran tahay marka aad googoysid waxa wanaagsan hadiyo goor marka digaaga la rabo in la kariyo in weel digaaga lagu rido biyana lagu shubo marka khal lagu daadiyo marka lagu meero hayla khalka wixii bacteria ayuu dilaya marka aad sida aad yeeshid ayaa habboon marka digaaga sidiisaba inaad karisid hayla digaagu inta badan waa bakteeriyadiisa ayaa badan marka waa in maxaan ku dhahaa sida la yeelo markaad meedid waxa aad markaa sameynaysaa beedkii baad soo qaadanaysaa waa beed marka sidaan hore idinku sheegnay waxay ku xiran tahay intuu qiyaasta digaaga u yahay marka halkan waxaanu isticmaalaynaa ilaa kiilo grama 1 kilogram marka beedkii aad walaaqaysaa markaad walaaqdo beedka digaagii waad soo qaadaysaa marka waxaad gelinaysaa beedkii baad gelinaysaa markaad gelisid breadcrumbkii marka aad marmarinaysaa siduu ugu dhegdhego breadcrumbskana sida horaan idinku sheegnay waa rooti la qalajiyey marka supermarketka waad ka gadan kartaa ama meelaha bakeryga oo rootiga lagu sameeyo ama adigaa samaysan karaya adigoo rooti gobol yar loo gogoyo qoraxdaad intaad u dhigtid markay qalalaan mashiinkaad ku shiidaysaa breadcrumbskii waa ku diyaar markaad marmarisid uu digaagu ku dhegdhego saliidaadii oo kulul ayaad markaa ayaa digaagaagii ku ridanaysa marba xoogaa ka digaagii kalena waa haddana sidii baad yeelaysaa beedkii baad ku ridaysaa breadcrumbskiina waad marmarinaysa markay ku dhagaana saliiddii ayaad toos ugu ridaysaa marka digaagaagii waa digaag hawshiisu uu aad iyo aad u yaryahay shaqo badan oo sidaasana ma laha marka mar walba waa inaad maxaan ku leedahay carruurta guriga aad ugu samaystaan idinkoona oran roast chicken ama Kentucky baan raadsanayna laakiin mid special aad gurigiina ku samaysateen yaa ka wanaagsan kana macaan maxaa yeelay digaagii haddaad doontid waxaad marmarin karaysaa si uu dhadhan u yeesho marka intaanad beedka marin waxaad marmarin karaysaa cusbo ama maxaan ku ilaadaa
waxyaalo dhadhanka ku keenaya sida hataa maxaa la yidhahdaa liin ama hataa basbaas baad marin karaysaa haddaad basbaaska jeceshahay markaasaad gelinaysa kuntina markaad marisidna breadcrumbskii baad maxaan ku yidhahdaa halkaa aad dhex gelinaysaa markuu qabsadana saliiddii baad ku dhex ridaysaa waaka saliiddiina markuu digaagu bislaadana waad ka soo saaraysaa breadcrumbskii oo si wanaagsan u qabsaday waaka waad aragtaan qoraxda uu leeyahay iyo qolyaridda aan ku samaynay marka sidaan hore idinku sheegnay mar walba in aanu samayno cunto kala jaadjaada guriga lagu sameeyo carruurtana cuntooyinkaasoo badan yaan loo diidin maxaa yeelay jirkooda ayaa u baahan cunto dhowr nooca in la siiyo marka waxaan oo wuxuu ilaahay noo sameeyey yaan la odhan cuntadeeni maaha waqti aanu maanta aanu iraano maaha cuntadeeni maaha maanta dunida o dhan way isku soo yaraatay waxyaal baa la noqday marka socodkuna u batay dadkiina meel walba way degaan marka qaaradaha ayaanu ka gudbana marka cuntooyinka qaaradaha lagu cuno oo dhan baa la rabaa in aanu mar walba aanu soo kaxayno oo aan isticmaalno si aanu haddaan tagno meel kale aanan u dhihin cuntadan ma samayn karno ama ma cuni karno ama mana naqaan tan kale digaagan roast chicken waxa aan u dooranay si aanu dhalinyarada aanu u barno ay u ogaadaan qofkii wuxuu samaysan karayaa makhaayad yar oo wuxuu ku iibinayaa roast chicken iyo chips dad baa roast chicken iyo chips intaasoo malaayiin dollar ka sameeyey say u bilaabeenna waa sidaas oo kale digaagii breadcrumbskii iyo saliiddii iyo tomato sauce iyo adiga waxyaalo maaragta waxaan ku dhadaa la dardarsanayo ama lagu cunayo iyo cusbadii unbaa qofkii uu ku furtay meeshiiba haddana maxaan ku dhadaa si wanaagsan u socota meel kale ayuu furtay marka hataa qaar baa dunidoo dhanba ku faafay sida Kentucky chicken ama haddaad wadamada carabta dadka tegayna waa waxaa maxaan ku dhahdaa arkeen luqluq walba iyadoo lagu sameynaya roast chicken marka dhalinyaro halkaas waad ka howltegi kartaan waxaad u baahanta haddaanad haysan mashinada lagu kariyana waxaad ku bilaabaysa xataa jiko yar ee saliiddii waa intaasu bay ku xiran tahay marka waa sidaa iyo maca salaama waxaan idinka codsanaynaa si aad kala soo xidhiidhaan